dawladda Turkigu ay tahay tii ugu horeysay oo ka soo jawaabtay waxa saakaan soo dhaweynay wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga iyo wafdiga uu hogaaminayo oo diyaaraddaas oo dawooyin siday iyo dhakhaatiir ay noogu soo deeqeen siday waxa kale oo aanu hadda saarina diyaaradda dhaawicii ugu khatarta badnaa oo halista ahaa diyaaraddu ilaa waxay qaadi kartaa hadda 50 qof Allah'a emanet olun.